Assalaamu calaykum. Ciwaankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay qaab dhismeedka iyo shaqada caloosha. Waxaa laga yaabaa dad badan inay u maleeyaan caloosha inay ku fadhido intaan, balse xaqiiqdu sidaa ma aha. Oo caloosha qura uma gaar ah xubno badan ayaa la wadaaga. Muuqaalkani waxaa ku qaadaa dhigi doonaa qaab dhismeedka iyo shaqada caloosha ee ka bogasho wacan. qaab dhismeedka caloosha. Calooshu waa muruq oo ah xubin u qaabaysan sida xarafka ja oo ku taalo rubaca sare ee qaybta bidix ee caloosha, waxayna wax yar ka hooseysaa muruqa diaphragmka oo kala qaybiya xabadka iyo caloosha. Waxay ku xiran tahay hunguriga iyo duodenumka oo ah qaybta koowaad ee mindhicirka yar. Qaybta sare waxay kaga xiran tahay hunguriga ama esophaguska tubada cuntada soo qaado. qaybta hoosena waxay kaga xiran tahay mindhicirada yaryar, khaasatan duodenumka qaybtiisa koowaad. Calooshu waxay u qaybsantaa 4 qaybood ama 4 gobol oo waaweyn. Kan koowaad cardia. Cardia waa meesha ay hunguriga iyo calooshu ku kulmaan. Midda labaad waa fundus, gobolka sida qubadda u qaabaysan oo ka sareyso dhinaca bidixna ka xigta cardia. Midda saddexaad waa body, bartamaha ayuu ku yaalaa, sidoo kalena waa gobolka ugu weyn caloosha. Midka afraad waa pylorus, gobolka u qaabaysan sida tubada oo kale, kaas oo galo mindhicirka yar oo ka kooban antrum iyo kanaalka pyloric. Darbiyada caloosha. Darbiyada calooshu waxay ka kooban yihiin 4 lakab. Lakabka koowaad mucosa waa lakabka ugu horeeya oo ka kooban qanjirada gastriga ama qanjirada caloosha oo loo yaqaano gastric gland ee soo saaro dheecaanada caloosha, xabka iyo enzymeska dheefshiidka. Lakabka labaad submucosa waa lakabka unugyada connective tissue ee ka kooban xididada dhiigga, neerfaha iyo lymphaticska. Lakabka saddexaad muscularis externa waa lakab dhexdiisu aad u weyn tahay oo ay ku jiraan fiilooyinka murqaha oo loo habeeyey 3 jiho: dherer, wareeg iyo dadab, taas oo u sahlaysa caloosha in ay luxdo oo aynu isku qasto cuntada. Lakabka afraad waa serosa, waana lakabka ugu dambeeya, waana lakab khafiif ah oo ka samaysan connective tissue oo ku daboolan peritoneumka ama caloosha, qanjirada caloosha iyo dheecaanada ay soo deeyaan. Lakabka mucosaha waxaa ku jiro dhowr nuuc oo qanjirada caloosha ah. 1. Parietal cells, qanjirkaasi wuxuu soo saaraa ama soo daayaa hydrochloric acid iyo intrinsic factors. 2. Chief cells waxay soo saaraan pepsinogen wax loo yaqaano. Qanjirka loo yaqaano mucous cells waxay soo saaraan xab si ay xuubka caloosha ugu ilaaliyaan dheecaanada dheefshiidka. Sidoo kale qanjirka G cellska loo yaqaano waxay soo saaraan hormoonka gastrin, kaas oo kiciya ama saa'idiya wax soo saarka HCl ama hydrochloric acid. Shaqada caloosha. 1. Dheefshiidka. Murqaha caloosha waxay isku luxaan ama isku walaaqaan cuntooyinka iyaga oo u kala jejebinaya qaybo yaryar oo ku qasan dheecaanka gastriga si ay u sameeyaan walxo dareere ah oo loo yaqaano ama la yiraahdo chyme. Dhaqdhaqaaqyadani waxaa fududeeyay qaabka 3 lakab ee muscularis externa, kaas oo u ogolaanaya dhaqdhaqaaqyo adag oo lagama maarmaanka u ah isku dhafka iyo shiididda cuntada. 2. Dheefshiidka kiimikaad. Qanjirada gastriga ama caloosha waxay door muhiim ah ka ciyaaraan dheefshiidka kiimikaad. Hydrochloric acid waxay hoos u dhigtaa pH-ka caloosha waxayna gaarsiisaa ilaa 2, abuurista jawi aashita ah oo ka saaraya cuntada borotiinada, dilayana cudursidaha iyo ka shaqaysiinta pepsinogen una bedelayso babsin. Babsin wuxuu u kala jebiyaa borotiinada peptides yaryar. Gastric lipase wuxuu bilaabaa dheefshiidka lipidiska ama dufanta, inkastoo inta badan dheefshiidka dufanka uu ka bilowdo xiidmaha yar ama mindhiciraha yaryar. 3. Nidaaminta shaqada caloosha. Dhaqdhaqaaqa gastriga waxaa lagu nidaamiyaa hababka neerfaha iyo hormoonada. Marxaladda cephaliga waxaa kiciya aragtida, urka, dhadhanka ama ka fikirka cuntada, waxayna kicisaa neerfaha vagus si ay u soo deyso dheecaanada caloosha. Marxaladda caloosha ama gastriga waxay bilaabataa markay cuntada soo gasho caloosha, taasoo keenta soo deynta dheecaanka gastrin, taas oo sii kicinaysa wax soo saarka aashitada iyo dhaqdhaqaaqa caloosha. Marxaladda mindhicirka wuxuu bilowdaa marka chyme uu galo duodenumka, taasoo keenta hoos u dhaca ku yimaado dhaqdhaqaaqa caloosha iyo soo deynta hormoonada sida secretin iyo CCK, kuwaas oo xanibaya dhaqdhaqaaqa ama dheecaanka caloosha iyo dhaqdhaqaaqeeda. 4. Nuugista iyo ilaalinta. Inkasta oo nuugista nafaqooyinka ay ka dhacaan mindhiciraha yaryar, calooshu waxay nuugtaa walxaha qaarkood sida khamriga, aspirinka iyo daawooyinka kale sida NSAIDska. Caloosha ayaa sidoo kale door muhiim ah ka ciyaarto ilaalinta jirka iyada oo soo saaraysa xab, kaas oo sameynayo xayndaab difaac oo ka hortagayo deegaanada acidica ah iyo enzymeska dheefshiidka. Intaas waxaa dheer, soo saarista intrinsic factor ee unugyada parietal ayaa muhiim u ah nuugista vitamin B12 ee xiidmaha yaryar ama mindhiciraha yaryar. Halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena. Waxaa inoo balana muuqaalada xiga hadduu Alle idmo. Khayr badan.